السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولا ليال ملك استودك كل جوكتان أدونك الدعالة ديسا وقت جو هيدين وعنادو سيدي عادة إنو هيد مقال عصوبة نديل وداقية ما توحانو كهالينا أن نديل وداقي مقال كسابسا حاليستا أوليا كوكاكولاها أو لعبو مقال كان سادو جيدان با أن بعضو أركيسان dalka Belgium iyo dalal kale oo Yurubta Faransiiska maxaan ku Pays-Bas ama Holland loo yaqaano iyo wadano kale oo qaar oo Europeana waxa dukaamadii iibinayay Coca-Cola ayaa laga gurayaa waayo waxa laga arkay markii la baaritaan qoto dheer la sameeyay waxa soo baxay in uu ka buuxo waxa la yiraahdo chloride ama chlorine loo yaqaano haddii si kale u dhigana waa jaafelka guryahan ku nadiifino markaan rabno inaan bacteria ama germska aan ku dilno waa jaafelkaas oo waliba 10 jeer 20 jeer in ka badanba kasi maxaan ku raahdaa kasi jaamudsan oo loogu talagalay shirkaduhu u isticmaalaan gaar ahaan shirkadaha casiirka sameeya biyaha isticmaala inay ku meeraan biyaha ee germska ku jira biyaha ku dilaan marka isticmaalayaanse waa in si miisaansan oo dheelitiran loo isticmaalo haddii ay ku badiyaan ama ay ka yareeyaan halis ayay u noqon kartaa muwaadinka ama qofka cabaya sharaabka sida halkan waxaa la sheegayaa Coca-Cola waxaa la ogaaday in ay ku badiyeen chloride-ka ama chlorine-ka taasina waxay keeni kartaa halis halka caafimaadka ah gaar ahaan dadka thyroid-ka leh ama kaliya xanuun ayay keeni kartaa kaliyaha ku joogsada inay shaqeyn waayaan kolka walaalayaal dalka jamhuuriyadda Djibouti shacabka reer Djibouti kookaha si xun bay u cabaan inta dambe waxaad maqlaysaa dhalinyar badan oo da'yar oo u dhimanaysa kaliya xanuun ay u dhimanaya beer xanuun iyo xanuuno kale dhiikar iyo wixii lamid ah maxaa waxa sababaya waa chloride-kan waa chlorine-ka loo isticmaalayo lagu nadiifinayo biyaha ama chlorka wax la yiraahdo waxa soo dhan waa isla mid waa jaafelka oo kale way kolka walaalayaal qof cabaya jaafel bal ka warama biyo markaan ku nadiifinayno biyaha ama guryaha ku nadiifinayno jaafelka urtiisa ayaana dhibtaba haddii aan ku darno dawo kale oo guryaha lagu nadiifiyo laba chemical oo la isku daray noqonaysa kolka waxa imanaya inaad qufacdo ama inaad joogi karinba qolkii lagu shubay waxaas oo kale kolka walaalayaal kaasi waa jaafel balka waran wax ka sii jaamudsan oo ka khatarsan oo la isticmaalayo waliba shirkadaha kookaha iyo casiirka sameeya intay casiirka ku darin ama ku qasin biyaha ay ku meeraan si ay germska ku jira ugu dilaan haddii ku badiyaana dhibaatada iyo halista halka caafimaadka ah ay keeni kartaa dhalinyarta reer Djibouti hadaba ee kaliyuhu fariisanayaan ee xanuunadu ku dhacayaan ee qaarkood u geeriyoonaya waxaan haysanaa anagu xaqoogiiba imid malina waran xaq u imaada sabab laakiin waxa keena waa maxay marka la baaro waxaan u miiran intay goor tahay hal foojignaado kookaha badan ee la cabayo ama sharaabka oo ka urmaha faantada spreadka iyo waxyaalaha sharaab casiirka dhan ay ku jiraan intaan ognahay intaan ogin ka warma dalkeena waxa ka dhacaya maalmo dhow waxaan ni sheegay biyaha oo laga dhaxalay germska saxarada halkuu ugu imid bacterigan saxarada ku dhex dhasha waa biyahan qasabadahan dhexdooda ee xayawaanadu ma taqaana macayanka jiirka iyo waxyaalo kale ay ku dhex saxaroonayaan marka ay meerayaan in si fiican oo qiyaasan loo meero oo la baaro oo baaritaan qoto dheer loo sameeyo dad la jecel leh oo muwaadinimada garanaya oo bani'aadnimada garanaya oo Ilaahay ka cabsanaya baa shaqadooda si la rabo u sameeysanaya waxaan kale imika jira ama jiilka hadda jira waa jiil xanuunsanaya waa jiil xumaan u ka shaqeynaya shar maahine khair ba weydiideen sama inay ka shaqeeyaan weydiideen inay xumaanta u tartamaan bay ugu talagaleen tartan halka xumaanta ah sidee uga dheefta dhibaatada shacabka hadda markaad ku tiraahdo maxaad sameynaysaa amba maxaad u sameynaysaa waxay kugu jawaabaan ma taqaanin hadda anaku sameyn weyna dad kala sameynay hadda san yeeli weyna anaku kuwa kala sameeyna blaaskayga soo galay yaani aqligu markuu kulliito dadka sidaas sameynaya ma dad aan waxba garan waa dad wax barto aqoon yana ah ودad khibrad leh
ودد إلهي علمي سي علمي مادي علمي ما تقنا ديني بقرني واحد صبيني ما عددك جاهلين تعالوا ما كل كأوجاد ولا ليال كفوا جناده بيها عبسان بيها عاجدها وان كهضلني صنطة يدبت إليهن حتى قصبتها بيها عبينه وإن لسك فلتريا وإن لسك كريا وجيران بحلو أجابيها جرسل لو إيبتو كندا وتصو إبسن كرتان وبيها بدأ كون نظيفين بحرات كعدك قفكي أودون بصمين كروارون لكن أنت أتكريسان وغيران اسك كريا بيها أنت دان عبين ما اتريما ماشا تعالى وبالله توفيق اللهم هل بلغت والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Une question de santé encore avec Coca-Cola qui rappelle des canettes et bouteilles en verre de nombreux sodas, Fanta, Sprite, Nalu, Tropico et j'en passe. Ceci n'est pas une page de pub mais bien un rappel massif de boissons et c'est toute l'Europe qui est concernée. Le problème c'est une teneur trop élevée en chlorate. Éric Bourdoux, Isabelle Husson et Éric Bever pour les explications. Ce sont des millions de canettes et de bouteilles en verre qui sont retirées des rayons. Toutes ont été produites à l'usine de Gand fin de l'année dernière. Le souci, un taux trop élevé de chlorate, un produit utilisé pour désinfecter l'eau. Une fois qu'on a découvert ce problème, on l'a rapporté, on l'a signalé à l'AFSCA tout de suite. On a aussi pris l'initiative d'avertir nos clients, donc les grandes surfaces, les supermarchés, pour bloquer le stock en attendant l'avis et la décision de l'AFSCA. Et aujourd'hui, avec l'AFSCA, on a décidé de rappeler les produits. Un excès de chlorate qui peut provoquer des problèmes rénaux. Coca-Cola est concerné, mais aussi plusieurs autres marques du groupe. C'est 8 références différentes puisque ça concerne aussi bien Coca que Fanta, que Sprite, Nalu, Tropico, Minute Maid. Donc il y a quand même un nombre important de variétés de produits qui sont concernés. Mais comment identifier les produits qu'il ne faut pas consommer ? On reconnaît ces bouteilles et ces canettes au code. Le code sur les canettes se trouve en bas. Donc il s'agit des codes 328 GE jusqu'à 338 GE. Et donc en bas pour les canettes et pour les bouteilles, en fait sur l'étiquette aussi que comme sur le cou de la bouteille. En cas de code entre 328 GE et 338 GE, les clients peuvent donc ramener les produits et se faire rembourser. À l'Agence de la sécurité alimentaire, on se félicite d'avoir été alerté par Coca. Ça prouve en tout cas que ce système d'autocontrôle auquel tous les producteurs sont soumis et doivent appliquer, ce système fonctionne. L'usine gantoise n'approvisionnait pas que la Belgique. Des produits seront également retirés aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en France et au Luxembourg.